السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان نقرأ سعودة وورباهنتي تشيس ميديا أنا قاعد أسمع الحرس عقالة يا دل سعود سينية موضوع إنه كل هذا إنه برنامج كان واجه هل كان محن يكون صور دافني إن كل الكشنات ودلتي وأقيرون يسوع مركها أرمهنا يكهل يسوع يمعنا سيدا ريالي جويهين والمركها waxaan jecelahay barnaamijka iyo barnaamijka kale aynu dhinac dhigi doono waakii waxa weeye maanta meeshii loo jiray bal xawa waxa uu geedanay Itoobiyaanku dagaal uu ku garab siinayo Axmed Madoobe uu ka dhacay waxa jirtay shacabkii ku noolaa halkaas oo ay doonayeen Itoobiyaanku inay la wareegaan iyagoo si kaste u soo dhaxgalay haddana waxay iska celiyeen Itoobiyaankii ciidan hadda aragtana waxa adkaada ka shacabku la socdo marka bal arrimahaas waxaynu wadaagaynaa ama isbarbar ku sameeynaa ragga halka ka dagaalamay ragga halkan joogay la canaananayo ayaynu isbarbar ku sameeynaa adna aragtiga aad ka dhiibanaysa waayahay bal haddaba waxaan doonayaa in aan ku horeeyo horta markaynu qoladaas soo daawanay bal qoladana hadda eeg sida ay gumaysiga isaga celisay waa waray Itoobiya waa iska celinayna maanta waa xirna wadada ma cabbi karto waa diidnay yaa saas waa dheeran ka hooyadii wasada bal haddaba labada isbarbar ku sameeyo waxa weeye adigu bal aragtidaada ka soo dhiibatay waxaan laakiin idin sheegayaa in tani hadalka ay sheegayso dheel baad u aragtaana horta waa dhab weeyaan waxa maqla jiray qofka 7 awooba la gumeystay 1948 kii Soomaalida inta kale isticmaar baa u yimi haddaba isticmaarkaas wuxuu ahaa kuwo wadamada reer galbeedka waxaana weeye local governmentigooda iyaga maamulanayay waa la wada tashanayay laakiin waxa gacanta loogu hayay wixii arrimo dabadeeda saacada la yiri naga guurno way guureen Soomaalida inta kale qolada aad waxa kala dambeeya laakiin qolo kasta markii ay tiri naga guurday way guureen xorriyadaadina ku sii bal Soomaalida Itoobiya imika inta hal qarniyo barbay sheegtay laakiin anigu Soomaalida Itoobiya waxa xorriyad ugu dambeysay bariga Axmed Gurey dhintay 1960 waa malay ilaa inta halkay ku madax banaanay xabashi ayuu madax kaga taagnaa Soomaa haddaba waxa weeye xabashiga laftigiisa hadii aa wadankan wada leedihiin ama wax isla ugu sheemo wax isku darsateen waxa laga soo goostaa cadkaaga inantii horta dib baan idin daawatinayaa qoodhiya xaradeen ila daawado wad qiiroonaysaa labadaas ilmo ka keenaysa waxa ay meelahan ay sheegaysaana waa meelihii waliba dhadhawaa waxyaabaha ka dhawacay iyo maxaa sheegayay waxyaabaha ku saabsan dileelka iyo tacadiga ee xaaradu ku haysay waayahay sababay gabdhaha reer ogaadeen iyo kunyihiin taariikhaha hadda dhacay waxa ka mid ahayd dhacdadii goday wiilashii la laayay waxa ka mid ahayd tii qabri dahar ka dhacday waxa ka mid ahayd tii dhagax buur ka dhacday la diiday in kor loo qaado waxa ka mid ahayd tii hadda qolaad ka dhacday 10 ruux lagu laayay ma soo koobi kara dhacdooyinka ay hadda inagu dhacay waxa ugu dambeysay hadda gabadhii yareed ee jigjiga lagu dilay waxa ina qabsatay in gabadh dhalinyaro ah oo wax baratay xasaanad xildhibaan haysa oo Soomaaliyada eraboodkeeda lagu dhex dilo oo aynu ka aamusno cid ka dhiididaa jirin waxa la yiraahdaa waxaan ku dhadaatay dalkeenu waa nabad deegaankeenu waa nabad iga dalkeenu nabad ma aha oo deegaankeenu nabad ma aha oo aanu dhalinyaradan maanta la hadlayaa xorriyad ma haysano 130 sano bay gabdhaha reer ogaadeen iyo kunyihiin raggii la dhashay may oran iyadu Soomaaliyay may oran dirow may oran dirku de waa kuwa iska celinaya aad arkaysaan le xabashi ma ogulin xabashiga istabiibu ka qaxwoodi ka arkay waxa weeye inantu iyadu waxay wax ku tahay walaalkii intan ay sheegtay iyo wax ka badan gumaysigan waa jiray annaga laftaygu raali kaminiin inaan Soomaaliyeed oo la gumaysta raali kaminiin ya haddaba waxa weeye nimankan ogaadeen inantu sida khaaska u tilmaantay ee tiri waliba waa ilmaadeeraday waxaan oo dhan markay dhacayeen xaadir bay ahaayeen haddaba waxa weeye hablahani amxaarka waxa kaga xun
kan ogaadeen ay sheegaysay iyada la dhashay sababtu tahay wuxuu sameeyey waxaan samaynaya inta ugu badan amxaarku waxa weeye inamadii lagu laayay qabridahar miyaha halkaa inamadii lagu laayay waa garanaya xabashidu dee laysay laba inan baabay haayeen baa filay waa kuwii dumarku aad u mudaharaadi jiray meel walba dumarun baa inaad arka mudaharaadayo aad arkaysa marka waxa weeye intan kale gumaysigu wuxuu ahaa kuwo inamadoodii loo soo isticmaalay oo la soo rakaabsaday oo sida ay doonaan iyagu u dhaqmay ya si aan ta muslimka iyo ta masiixigu toona ogoleen bal ordo niyu boolis ninkii garanaya uu garanaya xitaa dadkii niyu booliska dadka saska ay ka qabaan awgii xataa commentiga ma soo qori karaan walahi bariya dhaxaas waan ka hadli jiray arrimaha ku saabsanayeen meelaha ka dhacdhacay qofka dhex jooga kilibka shanaad cabsi uu ka qabay berigii bay dawacwalay ku fashilmeenay cabsi uu ka qabay awgeed xitaa inuu baraha bulshada ama qoraal soo dhigo diwaaba la isku xidho waa awgeed jigjiga dhexdeeda inuu ama qoraal soo dhigo ama ka hadlo awoodu ma laha laakiin intii dagaalkii dacwalay ka dambeysay waxaad moodaa dadkii naqas ka soo baxay oo ay qaar jigjiga dhexdeeda ma arkaya tiktok ka soo hadlaya waxay lagu samayn karaa waxa Mustafa Cagjar wax ka sheegay horta arrinkaas arrin fashilmay uu yara ekaaday waayo niyu boolisku tacaddigay doonaan intay sameeyaan ayay weliba dadkuna caburin jireen markaasaa qofka isiraaha hadal la baqdin la hadli waayay jiray cidii fashilaysana waa la garanayaa waayahay waxaan maqli jiray oo kuwa hablii ciise dhamal dhiraha laayeen wallahi waadeen baa gabaygaana loo tiriyay oo kuwa hablii ciise dhamal dhiraha laayeen aan dhex mariyay reer webi inuu dhaamo baxdo war horta halka waxaan kaga gudbinaa arrinta iyo hablaha dhiidhiyay ee gumaysiga raggu ka dhiidhi waayay iyagu ka dhiidhiyay waa hablahaasi may sheegin Soomaali waxay sheegeen ogaadeen oo waliba ilmaadeeradooda 130 sano in la gumaysanaya haddana wali lagu sii wado bay sheegeen waxa jira maanta indhaha ay leeyihiin waxa weeye degmooyinkii yaraa la qaybiyay dir iyo isaaq way ku soo jeedaan iyana Cagjar warina Cagjar muxuu haystaa waa qof isagiiba meel loo dhiibto leeyahay xaafadan mas'uul nooga ahaw qofka xaqiisa doonaya sidaa uma hadlo ya haddii aad Ethiopia wax la yeelanaysa qowmiyadda saddexaad baad ka tahay shidaalkaagii aad ogeyd inaad gaasta dabiiciga tahay waxaad arrimahan la yaabay wallahi imika 9 gobol ma degaano intaasoo waliba haddana ma la badiyo dhowr iyo 10 gobol ma noqdeen gaasta laga dhex qodayay ee intaasoo sanadood soconaysay sahankeeda iyo qodisteedu qof ogaadeena oo ka ogaana uu qarinayo dad u aamusi qof ogaadeena oo ogaa meeshan waxa laga wado abi axmed afkiisa ka sheegay socdaal bay ku iman jireen meesha indhayn macdanaha iyo beeraha iyo arrimo noocaas ku matali jireen gaastii imika markii la soo saaray 5% baa laga siiyay 5% gaastiina waxa laga soo saaray dhulka Soomaalidu leedahay oo hanti Ilaahay siiyo ku dul abuuray 5% waa laga siiyay manay ogeyn xitaa goortan la qoday ya maxaa u diiday markaa inay iyagu shaqaalaha 8% yeeshaan ila wadankoodii baa laga qodayaa dadku de waxan waa isku darsadeen Ethiopia waxan waa la isku darsaday ya waxa Tigreegu diideedu ma diidi karweey waxan waa la isu geystay saacada doontaabad wax diidi kartaa saacada doontana wada ogolaan kartaa wax walba wada ka gorgortami kartaa 5% baa laga siiyay imankana wax arrin iyo maamul ay ku leeyihiin ma jiro saacada la doona caalamka loo iibgeynay waaba tilaha 2 bilood ka bacdi waa la iibgeynay waa gaasti dabiiciga ah adduunka ugu qaarsan Yurub iyo America meel ay u maraan waayeen ruush ku gumaysanay taasay ku dul fadhiyaan oo aanay ogeyn qofka la soo baxay cid la soo baxay xitaa awood u lahayn inay la hadli karaan ya Soomaali dhexdeedana waxa ay ka sameynayaan wadaweyde harta Soomaali sideeduba iyada isku dhiiran laakiin Ethiopian-ka in la hadli karaa ma jiro ya marka laga reebo ragii guday xoreeyay anigu tan iyo Axmed Gurey baan halkan aalo horta kulidii waa la iska garanayaa annaga iyo sabaroon iyo ku digan baa leeyahay laakiin waxa weeye Soomaali inta kale wax way iska celisay ogaadeen oo kuwa habli ka dul qaylinaya 3 qarni ka horna u sheegeen la gumaysanay dad ka qabanayaan azaa waa salaamaya dhamaantii arrinka waxaan ku soo gabagabeynayaa ragga afdheer iyo ka mudaharaada iyo bahashii muxuu ahaay qalbi dahar iyo dhulkan waxa inantaasi idin sheegtay miya garan weydeen ku hoos nooshiin Soomaali ku tihiin haddii aad leedahay Ethiopia ma xuduud baan leenahay war xuduud haddii la isku ixtiraamayo Soomaaliya ka ayaga nagu ixtiraam lahay xuduudaha Afrikana waa muqaddas haddii xuduudaha Afrika la ilaalinayo weey haddii kala Soomaali waa Soomaali adeere meeshan aad hoos joogto aan kaaga gacan haadin
ولد السلام يا دمانتي وحا أركتي يا أراهنا إذا كاراك سوقورية حتى أوغادين كان شيء أوغادين ما هاينا ماغيو وحوي واحد أدوغو تايبان أنو ناه marka YouTube joogo sidee baan aniga iyo isku xuquuq u noqonaa adiga kililka digay xaq ku leh hadda hadii aynu mustaqbalkooda doonayso mid baan Soomaali warwad salaam ay dhamaatay